hadal u wanaagsan dhegaha dhalinyarada Soomaaliyeed ardayda macallimiinta adiga ahli waxbarasho dadka reer waxbarashada iyo waalidiinta iyo dowladda Soomaaliyeed saak wuxuu ka soo yeeray dalka loo yaqaan Azerbaijan war farxad la ka soo yeeray oo quseeyo scholarship jaamacadaha dugsiyada sare iyo afarahaas oo si fiican arab in uu guda galo laakiin waxa cil iga hayaa hadda waxa booqday page-ka baraha bulshada ay ku leeyihiin wasaaradda waxbarashada hidaha tacliinta sare iyo balabala ku Soomaalida wax ay soo dhigeen male bal indhaha ku heen doonaa in arrinkan la rabay in dowladda nooga hormarto oo dadka Soomaaliyeed ay la shargareyso in anaga oo shacab ah dadka soo istagno oo dowladdu waxay sheegayeen anaga aan sheegno saaka Azerbaijan madaxweynaha Azerbaijan wuxuu ogolaaday soo jeedinta dowladda Soomaaliya hadda ka hor sida xasuustaan bil iyo marka hor laba bil ka hor madaxweynaha Soomaaliya iyo wufuud oo hogaaminayo ay waxay tageen Azerbaijan heshiisyo dhinacyo fara badan leh ayaa la saxiixday oo ay kala saxiixdeen labadooda oo dhanka shidaal qodista shidaal baarista sida Turkiga oo wada oo kale laakiin heshiiska intiisa badan wuxuu ahaa waxbarasho dhanka waxbarashada sida exactly Turkiga uu sameeyay oo kale in dhalinyarada Soomaaliyeed ee dugsiyada sare kasoo qalin jebisay loo ogolaan karo in Azerbaijan ay u aadi karaan waxbarasho jaamacadeed iyo sidoo kale in Azerbaijan scholarships ay siiso dhalinyaro kumanaan kun gaaraya oo Soomaaliyeed iyo waliba in Azerbaijan manhajyo dugsi sare iyo meel caafimaad iyo meel goobo shidaal laga qodo iyo waxyaabahaas gas stations iyo in laga sameeyo gudaha Soomaaliya adi almuhim wuxuu yiri madaxweynaha Azerbaijan hadda loo bil ka hor markuu xasan sheekh meesha joogay Azerbaijan wuxuu yiri dhanka waxbarashada waa kasoo fikiraya heshiiskaas waa kasoo fikiraya qalinka ku duugaya waan ku soo sheegaa saakaya marka ansixiyeen dadka marka dhalinyarada Soomaaliyeed waxa rabaa meeshan inay ilfahantaan Turkiga hadda ka hor saan oo kulu sameeyay Soomaaliya yimid xitaa hadda xasuustaan qarixii dhalinyaro fara badan ee nooga dhinteen oo 100 gaarayso hargaha isaamaha oo ahayd October 2011 waaya marka dhalinyaro Soomaaliyeed oo Turkiga markaas uu yiri waxa bixinaya scholarship anaga xitaa markaas magaalada aan joognay la kala orday shahaadooyinka dugsiga sare ani alaabta macmuura la soo boodi ana wali waaga sibid dignay marka waati qarax u dhacay meesha lagu baabay awgeedeen waaya marka dhalinyaradii ka badbaaday dhaawac fudud uu soo gaaray waagaas 2011 ee Soomaaliyeed ayaa la siiyay scholarship waagaas maanta afturshika ku hadlaan shahaadooyin dugsi sare iyo shahaadooyin jaamacadeed oo ayaga jeebkooda aysan ka bixinin oo scholarship ah Turkiga uu siiyay ayaa maanta wataan intaas waxa kaaga daran moogtaa dhalinyarada in loo biyaamaya fiican arrinkan dhalinyaro gaarayso 3000 oo Soomaaliyeed tirada aan soo ogaaday waa 15000 inta Turkigu aado waxbarasho oo Soomaali ah laakiin 3000 oo dhalinyaro magaalada Muqdisho iyo magaalooyinka kale ku hareersan ee dalka Soomaaliya joogo maxaa yeelay Turkiga ganacsiyo waaweyn ayuu ka furtay dalkan Soomaaliya waxa xasuustaan Favori oo kale oo ah company weyn oo eelaboorka magaalada Muqdisho gacanta ku hayo Turkish kale marka qofka af Turkish af Soomaali ku hadlo shahaado Turkiga wato ordwa waxa ku shaqeynaysaa $36 an hour ku shaqeynaysaa companyada kale ee tirada badan Turkishka uu leeyahay waxa kamid ah Soma loo ku loo yaqaan Soma Construction Metak Holdings ku loo yaqaan jiro waxa kale jira Abayak ma la asaas waxa kaaga xiiso badan waxa jiro manhaj dugsi sare Turkiga uu leeyahay oo loo yaqaan Maarif magaalada Muqdisho waxay kamid tahay meelaha dugsiga sare ee Turkishka laga leeyahay uu ka howlgalo dhalinyarada daawanaysa jirto dugsiga sare kasoo qalin jabis waxa ogaataa haddaa shahaado dugsi sare oo Maarif oo magaalada Muqdisho ku taal tusaalahan aawadatid sidoo kale waxa la mid tahay ardayga shalay ka qalin jabiyay isla manhaj dugsiga sare wax loo yaqaan waa foundation Maarif oo ku yaalo magaalada quruxda badan ee New Jersey dalka Mareykanka macnaha waa isla halka dugsi sare waaye laakiin dalal fara badan ku yaala marka kan magaalada Muqdisho ku yaalo shahaadada ay ka wadatid iyo kan New Jersey USA oo New York ku dhigan ku yaalo adigii ardaygaas waa simantihiin hadduu bari lottery ku soo baxo cid ku su'aalayso fariya meesha saaro dhalinyaro infaat dhalinyaro fara badan ugu xiran oo buufs ku jiro Mareykan iyo Yurub isa lagu imaada war dugsi sare Turkish laga leeyahay magaalada Muqdisho ku yaal Turkish
ما نجعلي ما ننعبي ولا ليالو مرك إنا حيسينا يا لإيمان حقيقة اللي قالوا يعني ما أعرف مرك هذا هذا واقع صورة على صبر نجي مرة حداث دلينيرو صوماليات oo dugsi sare turkishku u leeyahay magaalada muqdisho ka qalin jibinayso isla sawiradan kalena aw jeedaan waa isla dugsiga sare oo laakiin qaybtiisa ama branch ku yaalo Mareykanka mid Afghanistan ku yaala jiro mid Nigeria ku yaala marka turkishka waa shakadii reer galbeedka ay wadi jireen gumeysiga yani gumeysi ma raba ergaas inaan isticmaalo laakiin waa sidee yani barnaamijkaada luuqadaada dhaqankaada sida ku fidisaa turkishka toos u soo gal Soomaaliya adi almuhim wari idinku daarin Azerbaijan ku dhahay sheekadii Turkiga ayay maanta ku dhawaaqday sida ogtiin shahaadada Soomaaliya ee dugsiga sare inta badan wadamo badan ma aqoonsano Turkiga uu aqoonsaday waatii Turkiga markuu Soomaaliya soo galay 2010kii wixii ka dambeeyay uu aqoonsaday oo hadda tahay qof arday dugsiga sare Soomaaliya soo dhameeyay oo Istanbul ku saartay wasaaradda waxbarashada iyo tan arrimaha dibadda Turkiga aadi kartaa scholarship la qaataa jiro Soomaalidu way ka caajisaan arrimahaas ma fiirfiiriyaan Azerbaijan isla sheekadii oo kale ayay bilowday anigana waxa leeyahay waa fursad dahabi ah Mareykan iyo Yurub iyo horta hanoo dambeeyaan Azerbaijan iyo sida Turkiga oo kale qaybna waa Yurub qaybna waa Asia marka walaalow inta meel iska fadhin lahayd bajaaj wada lahayd waxbarashadan wali full scholarship ah inaad raasatid dawladda Soomaaliya caawi war kaca soo kaca dadka u sheegay barnaamijyadan aniga hadda cabsida ugu weyn aqaba waxay tahay barnaamijkan scholarship iyo waxbarashada in musuq lagu wado oo ardayda lilaahiga daacad iska amsaakiinta ah waxaan aysan ba ka warheyninba oo sheekada hoosoosay loo 3,000 ee arday ee ka soo qalin jibisay Turkiga hadda Soomaaliya joogo si cadaalad ma lagu waday su'aashiis weydiinta mudan waa taas marka dawladdu waxa leenahay cadaalad bilaaba dhalinyarada Soomaaliyeed fursadan dahabiga qofka dhalinyarada waxa ugu weyn ugu qanisan ugu wanaagsan uu helo waa waxbarasho bila calaykum